barakaatu aniga ku soo noqday adeer xasan aadan aad iyo aad baan kuu salaamayaa in adeer cabdiqaadirow de horta eeg waynu badannahay iyo cudud baynu leenahay iyo ciidan baynu haysanaa de way jirtaa oo waxa weeyaan cudud iyo ciidanba way jiraan laakiin meeshaad kula dagaalamaysa waa gurigoodii qofkana gurigiisa haddaad kula dagaalamaysa lagagama adkaado lamana fasixinoo dagaalkii waa tan dee riwaayadda aad moodo filimka la matelaya ee marna laleeyahay caydhsada marna laleeyahay soo noqda anigu waxaan u arkaa ra'yigayga in meeshan ay siyaasadaysan tahay in maxaan sheegaya dagaalku siyaasadaysan yahay in reer lagu dhammaynayo meeshana reer baa ku maranaya marka waxa weeyaan dee reerku talaha yeesho reerku dowladda keligiina ma laha somalilanna keligii male reerku manfaceedana rag baa cunaa magaceedana rag baa leh dhibkeeduna habar jeceluu soo gaadhaa soomaadgana run marka laysu sheegayo habar jecla maanta wax allaale waxay dowladda ka tahay ma jirto ganacsatadoodiibaa toosh loo qaatay kuwii shaqaale hoosaadkoodiibaa toosh loo qaatay waa laga safeeyey dowladda labada odayee sagagarada ah ee magacuyaalka isagu maamulo mooyaane wax meesha inaga jooga way yaryihiin shaqaale hoosaadkii baa la eriyey oo ganacsatadiibaa kii litir shidaale la soo degaya cunaha laysu taagay marka waxa weeyaan dhibteedina ha igu dhacdo dheefteedina yaanan helin waa tala xumo halkii ugu dambaysay marka reerku hadduu damiir leeyahay caqli leeyahay ha ka soo baxeenoo ciidankeenna ogiyuu dhaafin dee wixii kale huunno iyo caga isku jiitee reer galbeedii dee ha tageen galbeed ha tageen dee jiidda iyo meesha laysku laynayo ciidankeenuna yaanu anigu haddaan talahayo xoran lanin habar jecliyo og xaggaa u dhaafin dhulbahantii habar jeclana allaysbaday adduunyadu inta ay taagan tahay ee ilaahay lahaa u tashanaya adduunkan u laabayo dhulbahanta iyo habar jecle ilaahay ba isbaday godobtuna inagunbay nagu dambaynays soomaad garani somalilanna haddii aanan dheefteedii waxba ku lahayn dhibkeedana inaan dhafoorka u dhigaa waa ii liidnimo maalin walba dhallinyaradaydii ku dhammaato soomaad garan marka anigu cadho iyo muraaro dirac guruubada kama hadlo ma soo galo wallaahi ciil bay soo geliyo bilaahi ciil bay soo geliyey soomaad garan maalinta marka la yado 10kii meel ku dhinta 8 baa habar jeclaa 5tii meel ku dhimata 4 baa habar jeclaa maxaa ma gaashaanka la iskaga dhiga xabadda marka dareerka odayaal ha yeesho rag ha yeesho ha loo taliyo Soomaaliland kaliya ma lihide tii waxa way dhibkeeda dhafoorka ha lagugula dhigo wallaahi bilaahi tala hadii layga maqlayana nin habar jecleenan og xagga u dhaafiyeen soomaad garan dhulbahanta godobtiisuna anuun bay ugu haraysa ana la dirisa ninka galbeed joogana ka dhulbahantayga xiga soomaad garan ilaahay xaq hayna garansiyo iyagana ilaahay xaq ha garansiyo bilihii khayrka lahaa baa lagu jiraa bili ugu khayrka badnaa baynu ku jirnaa ilaahay waxaynu ka bareena ilaahay masaalaxa dhixdooda dhigo adduun baa la qabsaday meel baa la duqeeyay waxba la fasaxay meel walba qof ashahaadanaya muslimo Soomaaliya walaalkaaya baa ku dhimanay soomaad garan marka godobta maanta habar jecel la galiyay mid inaga hadhaysana maaha Somaliland de waxa weeyaan Somaliland dhibtana habar jecel la dheeftana dad kala leh anu wax soconaya maahe rag ha yeelata meeshu ka hadasho oo ka tashata garcajisba dadkiisii kala bax wallaahi wa billahi tallahi waxa la sheego xogogaal dad ii sheegeen iyagoo kooxa garxajis iyo samaroon iyo Musa Bakar intay u tagaan inay dhulbahantaa ku leedan qoryahana naga hooya nasiya jiscin oo hawd laga soo wareejiyay wada goostaan soomaad gar dabal reerkan mintidka adeed moodan leeyahay Somaliland idinka kaligiin leh waa rag reerkan rag ha u kaco ha laga soo saaro dhalinyarada meesha ku maratay